mid ka mid ah qisooyinka ugu cajiibsan caalamkan aan ku noolahay bal ka waran adiga oo arday ah oo jaamacad dhigatid inaad jaamacadda ka hartid kabacdina aad go'aansatid inaad tagsila noqotid taasoo maalinkii laga helo waxyaale aad u yaryar waxyaalaha aadka u yaryarna aad siisid familkaaga ama aad ku caawisid hooyada aabbaha iyo carruurtaada ama qaraabada kale kuu joogto jaamacaddana aad uga harta daruuf awgeed qisadaasi haddii kugu dhiclaad ka waran wiilkan ayuu filimka qisadeena ku bilaaban doonaa waana wiilka jaamacadda uga haray inuu taksiilo noqdo suu familkiisa u caawiyo keliya wuxuu taksiilo u noqonaa inuu familkiisa caawiyo saa hadda u jeedin tagsidii ayuu qaatay laakiin waxaa dhici doona wax la yaab leh dadku u qaadi doono waa dad ree aakhiraad ah ama gosti mar walba uu wiilkan isku dayo inuu dad qaado dad ree aakhiraad ayuu qaaday hadda u jeedin gabarta wejiga si fiican looguma jeedo mar kaluu gadaal fiirinaya dadka uu qaadayo si fiican looguma jeedo gabartii ayaa degtay waa gabar ree aakhiraada saa u jeedin gabarta hal mar ayay biibaysaa wuu sii fiirinaa markuu sii fiiriyo aad iyo aad ayuu u naxaa wiilka dhan wuu isku naxaa gaariga ayuu ku dul suuxaya mar kaleeta haddana naxadin aad u darnaya wejigiisa ka muuqanaysaa u jeediin caadi ayuu u suuxaa laakiin markaan go'aan ayuu qaadan wuxuu isku daya inuu gaariga ka dawo uu carro gostigina wuu bursanaa saa u jeediin bal ka waran adoo jaamacad ka hartay haddana ilaahay balaayadaan oo kale ku daba dhigo oo mar walba oo dad qaad isdhahdo aad dad goosti ah ama ree aakhiraada ah qaadid gaarigii ayuu hadda usoo laabanaa mar walbana dadka uu qaado ree aakhiraad ayay ku noqonaan laakiin asaga faa'iidadaas ma ogo oo dadkan ree aakhiraadka ah wuxuu ka heli doonaa lacaga xaddhaafa lacagahaasuu familkiisa iyo asagaba ay ku taajiri doonaan hadda mar kale gaarigii ayuu ku jiraa saa u jeedin gabartaana u jeedin ee soo degaysa waa ree aakhiraadkii hawada ayay aadaysa uu sii fiirina ayadoo hawada aadaysa ayuu arkaya aad iyo aad ayuu fikiraa wiilkan wuuna murugoona gaariga ayuu hadda qaaday dadku hadda wadan ayaga dhan waa ree aakhiraad dadka mararka qaar wejiyaashada waa la arkaa mararka qaarna lama arkaayo tusaale ahaan mararka qaar uu jagboonti maraayo ama meel dukaana tagay uu meel kale u tagay way la socdaan laakiin dadka kale ma arkayaan asi laakiin wuu arkaa wiilkan dhallinyarada oo aan sheegnay inuu jaamacadda uga haray duruuf reerkiisa ama familkiisa haysato kabacdina uu go'aansaday inuu tagsi wado waxyaalaha yaryar ee taqaaniin sida tagsida ama bajaajta laga helana ay yihiin waxyaale inta badan aan nolosha dhan kaafi karin laakiin loo isticmaalo leh nolol maalmeedka ayaa qisadan la yaab kale ku dhacday wiilka hadda uu fikiraa uu murugaysan yahay hooyadiis ayuu habsiinaa hooyo ii ducee maanta jaamacaddii laguma laaban karo hooyo haddaa dad qaadana dad waxay ugu noqonayaan bahaliya ree aakhiraada markaan aasi dhan uu soo qar waa fiiri in la dilaa u malayna hooyadu iyaduna soo qarwe hooyo maxaa kugu dhacaayo hooyo isdeji hooyo maleekaa sareedhe way soo wadee gaariga ayay keenay wuuga sheekeyna waxa dhan hooyadii ayuu soo qaada haddana naagta ree aakhiraadka way la saaran taabo hooyada uma jeedo hooyo naag ree aakhiraadaa saaran gaariga waxaa ka daadanaan hooyada ma waalatay maxaa u baahan tahay hooyo isdeji ay dhehe hooyadii hadday ka harta xitaa haddana naagka hore aakhira la socoto markan haddana gaariga u soo laabanaa aniga ma idin qaaday anigeed maba qaadine aniga ma wax idin siiye ayuu dhahayaa wiilka ayaa xaaladda ayaa ku adkaanaysa wax alla wuxuu sameeyena wuu garan weynaa asaga dhan stress ayaa ku dhacaayo hadda sida u jeedin saaxiibkiis ayaa dhaawacmay oo jaamacad isla dhiganaan iyo sidoo kale gabar kale saaxiibana jaamacad isla dhiganaan waxaa loola soo cararaa isbitaal wuxuu u keenaa hadiyad yar wuxuuna dhaah hal la iga gaarsiiyo ma aqaani hadiyada daawo iyo caafimaad iyo waxaas ma ku jiraan markaan baaritaan ayuu samaynayaa goostiga ama ree aakhiraadka ayuu baaraa waxaa loo sheegaa ree aakhiraadka inay wax jira yihiin mararka qaarna ay dadka dilaan markaan tagsidii ayuu isaga soo laabanaa qof kale tahay haddana gacanta u haadinayo qofka markuu indhihi si kale u yaaliinba ileen waaba gabarta jacaylkeeda gabartan ree aakhiraadka u qaada labadooda wuu soo qaaday wuxuu dhaha walaalayaalo intaan kabacdi waxaan idinku sameeya ma lahan iga leexda faraha iga qaada ammaani siiya waad dhibteen madaxa ayuu qabsanaa mar kale haddana wuu qaadaa laakiinse asaga cabsi aad u daran ayaa haysato laakiin asaga ma oga dadkan inuu ka faa'iidi doono hanti aad u badan iyo lacaga aad u badan filinkan dhammaadkiisa waxaa ku arki doontiin wiilkan inuu tagsi dhan iska dhaafo uu helo hanti aad u badan taasoo asaga iyo reerkiisaba ka badan laakiin inta ka horeysa cabsi khalkhal stress iyo inuu meel walba qaban waa ayaa ku dhacayso bal ka waran adoo Soomaali ahaan lahaa ama qof kaleba ahaan lahaa haddii inaad go'aansatid jaamacad aad waqti dheer u soo martay oo la yaabo inaad dugsi dhexe dugsi sare iyo weliba bareefado ama meelo kale waxbarasho u soo martay muddo dhan ilaa dhowr iyo 10 sano kabacdi aad dhexda uga hartid saad reerkaaga iyo familka u caawisid kabacdina aad gaari yar ama bajaaj yar aad qaadatid kabacdina qof walba oo ku soo raaco
oo kugu noqdo ree aakhiraad weliba aad kuga cabsi gelinayo wiilkan taas ayaa ku dhacday hadda saa u jeediin wiilka haddana mar kale saaxiibkiis ayaa shil gaari galaya wiilkan dhinac walba waa laga soo weeraraa mar dadkii saaxiibba ahaayeen ayaa dhaawacay shilal galayaan mar asagii ayaa ree aakhiraad qaadaya gabartaana u jeediin oo kurka dheer qoorta dheer waa ree aakhiraad wiilkan kama harayso hadda meeshaan ayuu soo istaagayaa gaarigiisa ayuu ku laabanaa gadaagaal reebs ayuu qodaa gabar ree aakhiraadkooga saaran tahay wuu yaabaa soo kad banaanka ugu soo tegaysa xasuusuu galaa ayadoo dad la sheekaysan soo arka hooyadiisu imaan hooyo maxaan sameeya hooyo gaarigan ma iska dhaafa waxay dhihi hooyo adaa waalan mahno wax ree aakhiraad la yidhaha ma jiro adaana ree aakhiraadkan iska dhaadhicisay bas eedadiis ayaa cunugiis u dhaqaysa waxaa soo xusana hadda kahor eedadiis wuxuu ga sheekanaysa ree aakhiraad inay jiraan sawiraantii iyo wixii xasuus buu galaa gabarta aakhiraadkooda la joogtaaba ayada laftirkeeda sawiradii iyo waxyaalihii qadiimiga ayay fiirinaysaa talo way caddaatay xaalku xun yahay hase u jeedin bajaajtii ama gaarigii ayuu wadaa weli waxaa la saaran gabarta ree aakhiraadka shirka ma degis ninka saaxiibkaada gadaal u saaran yahay gadaal ayay fiirinaysaa asi wax ma oga wuu yaaban yahay ilaa haddeerna wuxuu fahamsan yahay ma jiro dhalinyartii iyo dadkii la dhashtay lacagii wuxuu ree aakhirad ka soo qaadaa wuu geynaa wuu siinaa ayaga waa iska faraxsan yihiin waa iska damaasheen walaalkeen ayaa noo shaqaynaya ayaa taagan yihin laakiin ma oga miyaa walaalkood dhibka iyo silaca iyo rafaadka haysta ani horta kulli haddaan tayda ka hadlo tan hadday i qabsan lahayd aad iyo aad ayaan u silci lahaa hadda gabarta ree aakhiraadka ninkii jacaylka la sheekeynaya maxaa iga damacsantiin mise maxaa iga rabtiin ayay leeyihin waxay ku dhahan anaga keliya wax kale kaama rabno adiga waxaa wataa tagsidaada anagana keliya waxaa rabno inaana qaato oo waxaad nuu qaatid oo xaqaagana aan ku siino hoonaan dhibaato kale kuu geysanin wax kaloo dhibaato ah kuu geysanina ma jiro dukumentiyadiisii iyo waxaas iyo dugsari iyo waxaas raadinaa gabarta ree aakhiraadka marka laftirkeeda markan way shoogaysa waa sheeganaysaa waxaas leedahay dukumentiyadini waxaan armuu shaqo ku tagaa ama armuu shaqo ku raadsadaa oo ninkan tagsiga iska dhaafaa ninka jacaylkeeda u qoslaysaa way u sheegaysaa mar kale ayuu soo qaaday marka uu soo qaaday hooyadiis iyo dadkii kaleta ayaga way iska damaashaadayaan hore ayuu u soo qaaday wuxuuna isku dayay inuu geeyo meel suuqa hooyada ayaa waxay walaalaheed ku dhahaysaa ama wiilka dadka la dhashtay waxay ku dhahaysaa wiilkeeni saan ayuu u silacsan yahay ee shaqo kale ama wax kale ma raadina markaan waa la soo waca hooyo ii waran xaaladaa seeta dhan hooyo waa fiicanahay laakiin weli waa shoogsanahay laakiin iga war haay ayuu dhahaa markaan isbitaalo cilmi nafsi ayuu soo booqana wuxuuna dhahaa bal xaalkii waxay karo naagtii ree aakhiraadkeed way soo ordee way soo ayaa laftirkeeda inay jirinta iska dhiga sababtay ninka inay khalkhalisa ay rabtaa ninka saaxiibkeeda laftirkiisa wuu fikiraa wax murugunaya ayuu iska dhigaa ninkii dhan in isbitaalka soo aado ama goobtii isbitaalku imaado waa laga qasaa oo waa la wareerinaa oo ninkan waxaa la isku dayay in qaab psychology ama cilmi nafsi loo daaway laakiin waa la qasaa dhinac walba ayaa looga imaanaa wax alla wuxuu sameeyay uu garan weynaa meel walba oo ta way daba taagan yihiin meel walba oo ta way daba joogaan aad ayuu u murugoonaa asi dhan waa isbedelaa nooc kale ayuu noqonaa tala ayaa ku caddaatay wuxuu sameeyay khano markaan islaantaana u jeedin ayaa waxay gabarta ree aakhiraadkii kuwan way la sheekaysanaysaa marka inay arkaan ayaga ayaa istusiyeen waxay dhahan adina ma arki kartid laakiin annaga ayaa iska hatusina ayay dhahayaan way ka shakinay kabacdi waa iskaga aamuseen hadda tagsidii waxaa maanta wado ninkii oo ree aakhiraadka ayaa gabarta ayaa wadaan wayna iskaga raaxaysanoo iskaga baashaalayaan oo wuxuu ogolaaday mararka qaar in ayaga wataan wiilka ayaa wuxuu ku dhaha walaalayaal hadda ujeedin maxaa iga damacsitiin maxaa ii daba socotiin familka reerkeena oo shaqeeya dhahana waxay ku dhahayaan walaalo haddaad qof taxi ama ku qaadaad $1 2 $3 ku qaaday laakiin anaga halka mar taxi nugu qaaday lacagta u yara ku sin waa $700 ilaa $800 wuxuu dhaha $700 waxaan uga baahanahay malahan cabsi ayay ugu disheen ee iska kay dhaafa dad aan aqoon uma shaqayn karin waxay dhaheen niyo hoonin maalmo yaroo soo socda waxaa noqon doontaa nin taajir ah oo hantiilo ah oo taxi wadi doonin balse laakiin asaga loo shaqayn doono istaraatiiji iyo wax bay tusinaan laakiin asaga ma aamini doono mar walbaas waxaa niyadiisa ku jiri doona inuu dhiman doono idil doono gacanteeda ayuu arkaa gacanteeda markuu arko acuudu billaahi min ashaydaani rajiim waa gacan jeexjeexan oo saana tan ayaa waxay ku abuuraysaa walwal cusub iyo xanuun cusub markan walaaliis ayuu la sheekaysana wuxuu dhahaa dadka saan ay leeyihin lacag badan iyo hanti badan ayaa ku siinayna ayay leeyihin hadda aad ii jeedin ama aragtiin waa imaqlayaan wayna ila joogaan aniyoon maxaan sameeyaa hooyadiis ayuu gacanta ka fiida hooyada gacanta laftirka oo jeexjeexi waxay lahayn laabu ku arka hooyo adigan ree aakhiraadka isku mid baa tiina waxay hooyada dhihi qaabkan idii soo korinaya ee shaqada idii qabanaya waayo saasayna xididada gacanta saan iga noqdeen wiilka hadda marka wuxuu isku dayaa inuu go'aan qaato uu ama taxdan iska dhaafo ama uu taxi ka sii wato ilaa meel loo laabto ma jirto oo jaamacadii looma laaban karo saa u jeedin familkiisa ayuu la joogaa ree aakhiraadkana korka ayay ka ilaashanayaan oo ree aakhiraadkan waxay rabaan inay ku shaqaystaan laakiinse ree aakhiraadkan waxay rabaan noloshan dhibaatada ah ama xanuunka ah uu ku jiro inay ka bixiyaan oo aysan hanti aad u badan
hadda wuxuu isku dayay inuu soo aado gabarta aakhiraadka ahayd uuna ku dhaho maxaa la dhahay maxaa naga damacsatiin aakhiraadkana waa ogtiin waa islaanta weynta ee mid danyarta ah islaanta weynta ah inta badan ayada lama arkayo inta badan waxaa la arkaya ee asaga daba soconayo waa gabartaan yar laakiin markan guushiisa ayaa soo dhow bal ila arka si u guulaysan doono wiilkan yar islaanta aakhiraadka waxay ku dhasaa nihon warqadahan iyo waxaan dukumentiyada aad shaqada ku raadsan iska dhah sidaad hadda u jeedin wiilkii yariiska ahaa gaarigii ayuu soo aadaa gaariga wuxuu ka dhexelaa taleefon ayuu ka dhexelaa ilaan taleefonkan waaba taleefon banki ama account u furan yahay keliya hal mar wuxuu ka dhexelaa lacag gaaraysa $1 milyan uu shoogaa marka dhexdo taleefonka wuu tuuraa awooddiisa ayaa ka badanayso mar labaad ayuu soo qaadaa markuu soo qaada nin ayaa la soo istaagaa waxaa la dhahaa lacag $3 milyan ah ayaa akoon kuu daalo waa kana warqadii ama dokumentigii aad ku qaadan lahayd aad iyo aad ayuu u yaabaa wuuna fajaca wana kaas warqadda ku qoran tahay aad u mahadsantihi